shirkeena wuxuu ku saabsanaa waa warbixin isbitaalka deegaanka cagaaran iyo mahadcelin aanu mahadcelinayo bulshaweyntii waxna soo gaarsiisay oo wax noo qabatay oo jaaliyada ahayd dhammaantoodba khayr badan allah siiyo noloda ajri xasanaad ilaahay ka siiyo number 1 waxaan rabnaa halkan midiyaha inaanu ka cadayno haddii aanu nahay maamulka deegaanka cagaaran gabadha loo yaqaan Samiira Cabdullaahi Daafeedoy alaabta ay noo keentay oo ay ka geertay dalka dibadiisa waqtiga badan ay gelisay dhibaatada iyo rafaadka tirada badan ay u soo maray waxaan maqlahayaa baraha bulshadu ay ku kulantay Facebook-yada in waxyaabo badan ay ka soo yeerayaan dhagaha iyadoo ku soo dhacaya waxay ummaduna haddii ay soo shukriyin oo qofku uusan qofka ibn aadanka uusan ku shukriyin adoonka ilaahay kuma shukriyin waxaan halkaan inaan ka cadayno inaan halkaan uga mahadcelinayno Samiira Cabdullaahi Daafeedoy aan rabnana in aan marxaati uga dhigno hadda ka horna in aan ugu sameeyno haddii aan nahay reer cagaaran shahaado sharaf midaas waxay turjumaysaa oo ay cadaynaysaa Samiira Cabdullaahi Daafeedoy wixii ay noo soo qaatay oo ay ka keentay dalka dibadiisa in aan ka helay oo ay noo keentay waxaan rabaa inay marxaati fur halkaan ka ahaato bulshada aaminsan waxyaabaha baraha ka yeeraya bulshada ay isku aragtay Facebook-yada waxyaabaha ka yeeraya bulshada aaminsan ama soo dhigahaya waxa ay soo dhigayaan waxaan u aragnaa inay yihiin wax qalad ah waxaan leenahay walaalayaal waxaas waa waxba kama jiraan waa waxba ka jirin qofka bini'aadmiga markuu wax qabto waa maasan tahay iyo shukran uu leeyahay si uu meesha u marayo uga sii ambaqaado oo uu hore uga sii socdo laakiin shakhsi kastoo wax qabta haddii lagu dhaliilo ama lagu cambaareeyo waxaa imaanaysa shakhsi walba inuu gurigiisa seexdo si aysan iftira iyo aflagaada u soo gaarin cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo nasabadiisana uu u ilaashado waxaan leenahay waxaas waa waxba kama jiraan waa qadaf waa gaftaal waxaan leenahay haddii aanu nahay bulshada haatan roolka fadhida iyo waxa la wixii wax garanaya ama afkooda ku hadlaya 14 boqolka waanu ka dhahaynaa waana ka raaligelinaynaa Samiira Cabdullaahi waxa soo gaaraya oo halka ka soo gaaraya waxaa leenahay 14 boqolkaba Samiira raalloko wala macaan waxa uma dhigantid umana qarantid umana nisbuudid mana adlihid waxaan rabnaa inaan halkaan ka cadayno sidii gudoomiyuhu uga warbixinayo annagu waxaan nahay maamulka deegaanka cagaaran waxaan xogtooda haynaa oo aan gacantayda midigta ku jiro oo soo galay qalabkii ay soo qaaday Samiira Cabdullaahi sidii hadda gudoomiyuhu uga warbixinayo Samiira qalabku way uga soo horeysay dalka badweyn asagoo marahayay boosaasa ka soo degtay way ka soo gudubtay halkaan ay timid ummadaan anagu oogay waxna aan ka idmanay oo nabadoonadii bulshada reer cagaaran ay kow ka ahaayeen saweyna xaashi jaxeer oo kow ka ahaa jaamac kabare ninkii loo oran jiray Cumar Buraale ragga noocaasa ayaa loo xilsaaray waxaana u xilsaaray ummad badan oo isku dhufan mas'uuliyiin heer dowladda dhexe ka tirsan iyo annaga maamulka deegaanka cagaaran iyo waxgarad iyo bulsho kasta oo isku dhafan ayaa u xilsaaratay waxaan marxaati ka nahay halkaan aan ka cadaynayna waxyaabaha laga sheekeeyo inay yihiin waxba kala jiraan ku jiro fikrino waxa inay yihiin iyo iftiro waanu ka xalinaynaa waxyaabaha alaabtaas Samiira way ka soo horeysay alaabtaas Samiira waxay isku arkeen cagaaran haddii ay cagaaran isku arkeen annaga reer cagaaran alaabtaas waa la soo gaadhay waa taqabalay waa la wareegnay waa haysanaa alxamdulillahi rabbil caalamiin cid kasta oo kulli ka duursatay waan ku bogaadinayna waan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iska leh waxaan leenahay ajri xasanaad allah ka siiyo waana ku mahadsantihiin waxaan leenahay bulshada hadda tambaraha waxyaabaha xubka dhigaya allah noo soo hanuuniyo leenahay ayaga ma habaarayno ilaahay ha soo hanuuniyo sida khayr kale iyo dhinaca danta ku jirana allah tuso alaabtaas anagu waanu taqabalay haddii aanu taqabalay alaabta aan annaga reer cagaaran aan bixinay oo aan siinay isbitaalka iyaga guud ee gobolka mudug gaalkacyo annaga reer cagaaran ah bixinay ma aha wax cid kale lagu eedi karo annaga haddii eediyo kiis iyo dambi ay leedahay oo bixinteeda ay wax ka soo hoyanayaan annaga reer cagaaran oo uu u yahay maamulka aan ka tirsanahay anigu oo idin laanahay yaa kiis iyo dambi hadday leedahay iskale annaga isbitaalka guud alaabta geynay waana isbitaalka iyagii waxa kale yiraahdo waxaan isleenahay waa ku mahadsanayeen ama barak ama arag waa in ku toobo in adkeysaan mana ahayn lamana oran karo nala
waxaan mudnaan u lahayn waxaan leenahay alaabtaas markaa iyadu warbixinteedu noocaasay ahayd waana soo gaadhay waan haysanaa samiiro bogaadin iyo ammaan iyo mahadsanaan waxaan ahayn oo ay ku leedahay alaabtaas ama looga nisbayn kara ma ay jiro waxaan leenahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaan leenahay wuxuu ku soo gaaray samiiro 14 iyo 100 raalli baad ka ahaanaysaa wixii miidiyaha kaa soo gaaray iyo baraha bulshada annaga kaa raaligelinayna sababtoo ah waxaan u aragnaa bulsho naga tirsan walaalaha iyo Soomaali muslim in ay yihiin reer cagaaran u badan inay yihiin baan u aragnaa wax aan lahayn una misboobina ay ka soo gaareen oo gaftaar ah waxaan leenahay waxa laga yaabaa aragti khaldan inay aaminsan yihiin laftirkoodu waxaan leenahay walaalayaal si khaldan hadii wax la idin ku tirtoono maadaama uu deegaanka xaalad ku ahayd oo uu joogay sidii wax u dhicin ama ay wax u jireen noocaas ay ahaayeen ummadii alaabta la wareegtay masuulka deegaanka ka ahayna annaga waaye samiidana alaabtaas mahadsanaan bay ku leedahay iyo bogaadin wax kale ay ku leedahay ma jiro waxyaabaha aan meelaha u marinaynana inay kama geeyo inay kama istaagsho umana nisbowdo waxaan leenahay sharafkaaga iyo cilmigaaga iyo karaamadaada iyo jiritaankaaga waa intaas way ka sarreeya walaal khayr badan Allah ku siiyo annaga xeer baan ugu leedahay abaal baan ugu leedahay ilaahay ajir iyo xasanaad ha kaa siiyo wixii aad noo keentay walaal qalbiga waanu kaaga mahad celinaynaa waxaan leenahay waa kuu baahannahay horeyna waa kuugu baahannahay hadeerna waa kuu baahannahay kaamana maaragno alaabtii kama warrooni bay waayo anu alaabta maba arag bay cagaaran baan ka joogaa container bay ku jira ma arag alaabtii wasiirku wuxuu u qabtay xamaal wuxuu u qabtay gaari $1,500 uu ku bixiyay khayr badan Allah siiyo xanameylaa alaabta iyo samiira cagaaran bay isku arkeen waxaad ogaataan oo markhaati ka ahaataan ama dadka na dhageysanaya ha noqdeen ama kuwa na fiirsanaya ha noqdeen samiira daafeedow iyo alaabtu waxay iskugu yimaadeen cagaaran markay iskugu yimaadeen alaabtu alaab aad u fara badan bay ahayd waxaa ku jiray sariiro qaaliya oo fara badan waxaa ku jiray gaari culyaano qaali ah waxaa ku jiray alaab fara badan waa ku jirtay alaabtu waxay noqotay alaab isbitaalka cagaaran waxaana baahidiisa hadeer kafaynayaan waxaana baahidiisa mustaqbalka kafaynayaan waxaana isbitaalka weyn in loo gudbiyo mooyaane aysan 5 sano soo socota isbitaalka cagaaran usan baahi u qabanin bay noqotay waxaanu samaynay inaanu raadino cid alaabtan aqoon u leh oo kala gudha oo caawisa dhaqaatiirtii iyo bahda caafimaadka oo meesha joogtay waxaanu u yeernay Dr. Cabdikaafi Yuusuf Jiriir oo hadda inala jooga wuxuu u yeeray dhakhtar kaleeto oo shay baaraysta ah waxaan isla garanay 3 maalmood taqriiban ama 4 maalmood baa dhakhtarku iskaga soo dabalaatay alaabta inuu kala guro wixii isbitaalka cagaaran ka maalmi waa 5 sano soo socota u baahnaa meel gaar ah dhakhtarku dhigay wixii kaleetana meel gaar ah la dhigay taqriiban 10 bari bay meel gaar ah taalay dhakhtarku alaabtaas markuu asiga dhaqaatiirta kale loo kala guray waxaa la socdo qorshaha kala socdo asaguna la socdo qarashka iyo shidaalka wax ka bixinayay barasaabka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الله سبحانه وتعالى مهد له السلام عليكم عامة الديان كعبارا وضياشة بعد وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنت هذا الحدث الجسوف والبحمد لله ورسوله وقيمة هي غاية ربنا أنا أشكرنا إياه وخصوصا مثال عقارن iyo qalabkii la keenay ahaa daawada markaybaadka sifooyinka ay u kala baxaan dhakhaatiirtu waxay wax ku qabtaan ka koobnaa ilaa waa mahad gale waxaa soo daadahaynaya muddo fara badan oo meelo badan ka soo saaray samiir magaca uga bedelno oo kasii muhiimsan baan la'ahay waxaan oran lahayn
inay wax duusatay ama wax duusay baarna halka inay kaliya iska liidaan ay ka tanaasulaan sida odayaasha hore iga sheegeen maamulka gudoomiyaha iyo xildhibaan aadan samiiro badweynta iyadoo alaabta ay ku jirtay halkaan timid marka ay timidna nimanka hadda halkaan ku qoran iyo baha kale ku gudoomiyaha waxaa siraaj iyo walaale iyo ninka la yiraahdo jaamac kabahe magaca dheer sagayda diminayaan bay uga soo kacday oo kiil uga dhigtay saddexda kiilo aan macnaha magacooda soo qaadanayn way ka badnaayeen waxay ilaalinayeen amniga alaabta si ugu soo degaan waxaa uga dambeeyey oo canshuur dhaaf ku sameeyey wasiir cabdiweli nuuran samiira markaa intaa la sameynayo cagaaran igala joogta haddii aan sugayno ay timidna aan dhameynihii wareegin haddii la oran lahaa gabadhaas waxbay bay ku qaabsatay ilaahay meeshuu bool ugu jirin 3 maalmood daa ree cagaaran waa wari lahaayeen ayaa nooga bixiyay isbitaalka si dhamaystiran baa alaabtaas halkaan ugu dhigtay si dhamaystiran baa reer cagaaran ula wareegay oday iyo islaam iyo arday iyo maamul haddaan nahay faraxii sidii dukiideed baana waxaan ugu soo dhoobanay si waxa ay noo tin alaabtaas meesha haddaan joogno isbitaalka ah shaksi nagama maqnayn si dhamaystiran baan ugala wareegnay samirada afiru allah barakeeya dunya haraba intii ka dambeysay waxyaalaha la sheegahayo oo haatan sooriyooyinka inta la bixiyo dadku intay wax qashaan bay dadka bahda u dhow sooriyo siiya waxaan ku magacaabi karnaa waxaan bixinay sooriya ahay in dad islaama lagu ifteeriyana maaha meeshaan sooriyada goynayna bahda waa joogtaa ama muslimiin baa joogta u baahan cagaaran alaabtan ka hor 2 bilood intaan la joogin bay isbitaalada darsiyada nala ah waxaan ka cilqabnay alaabta inaanu qaar siino bacluun inaanu qaar siino burur baahida iyadaan ula tagnaa way naga soo kafeeyaan waxa awoodooda ah waxaan subaxa ku dhamaynay sooriyaan ka bixinay qof islaam ku bixiyo oo keenay in lagu garaafeeyo ama deegaanka lagu garaafeeyo waxaan haysanay islaamaadku waxaan la cid kasto oo qabtaa fikirkaasi ka baxdo samiirada fi waxba ma garanin af ay tuwan farqa laga afka laga wado waxa la yiraahdaa samiirada fi nabay kula saaxiibay nabay ku dooratay faday ku soo gadatay xaqii geysatay waxa jac jirama ila subhanahu wa ta'ala nabay qana waqtiyi haduu yirina ka soo noqdo uu dambaabay walaasheen afka ka dalbo inta la dhimanayo waa dhow yahay afka ka dalbo ilaa toobada u xiriye ma leenahay alaabtaas oo dhammaystir bay noogu timid alaabtaa dhammaystir baan kala wareegnay waxaa la bixiyey shaksi bay ka ahay sooriyay ahay meel u baahan baan geynay meel aan u baahannahay aan geynay annaguna iyada sidaas weeye waxaa oran lahaa cid kasta oo hawshaas wax ka jira ama wax kaga jiraan ha ka baxdo iska dhilido lagaadooyinka soo gaarhaya ha dhiliyo samiiro waxaan oran karaa annagu haddaan racagaarna waxaan u bixinay samiiro ku dayo ficil kaga dayo qabyaalad la'aan kaga dayo waxqabad kaga dayo geesinimo kaga dayo deeqsinimo kaga dayo waxaan rabnaa jidadka ugu waaweyn inaan ku bixino marka samiiro ku dayo baabana racagaan haddaan hallinkaas aan hayno dadka marka meelaha qurbaha ka soo caayaya ama aflagaadaynayo kow waa qof islaam ilaahay kuma banayn xanteeda labo waxay dhusatay jiraan ciidan ku raali gelinaya wallahi ma jirto ciidan hadda ku raali gelinaya wallahi ma jirto sida xaqiiqdaas qofkii marka cudurka ku jira ka baxo qofka cudurka ku jirin caqabad baa laynaga baahan yahay waxaa ka ficnaan lahaa inaad caydaan inaad soo dhiibtaan cafaayadda gabdhuhu ilmaha markay dhashaan loo geliyo leena cagaaran qofku ka weeyey qofku kale waxaa laala wixii loo keeno wuu u baahan yahay kii gogol u keena kii shadarwo u keena kii biyo u keena kii meel hoos la geeya kii u sheekeeyey maca u baahan cabaayadahan u baahan daladookaan u baahanna waxaanaan u baahan cayb uma baahanin aflagaado uma baahanin waxqabad runaan u baahan dad maqlaysaan dhagihiina furta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال ده سميرة عبد الله جامع جوكتا
deegaanka cagaaran ama ku sugan. Waxaan wada salaamayaa dhammaan khiyaarta ka soo qayb gashay, dadka sharafta leh, mudanayaal iyo marweyn, nin walba taytalkiisa iyo meeshuu fadhiyaan ku salaamayaa. Bacdal salaan dadkii baa waxaan ka soo hadli lahaa oo dhan ka soo hadla sharafta leh iga horeeyay. Waxaan raacinayaa qaylo ka soo yeertay ama aan ka jawaabayna horta dhammaantayada qaylo ka soo yeertay qurba joogta deegaanka cagaaran ee ku sugan adduunka dacaladiisa. qayladaas maxay tahay ama cabashadaas ka timid? cabashadaas waxay ahayd alaab la geeyay isbitaalka weyn ee guud ee mudug ee gaalkacyo oo ugu deeqay deegaanka cagaaran iyo maamulka cagaaran ugu deeqay isbitaalkaas iyo hadal aan iri markaan alaabta wareejinayna 2016 ayaanu bilownay annagoo ah gabdho reer cagaaran ah oo qurba joogta reer cagaaran ah isbitaalkan inaan ololeyno. waxaan ahaa qofkii ama fikirka keenay ama howlwadeenka u horeeyay baan ahaa ama gabdhaha yani qofka hogaaminaya. waan badnay gabdho badan baan ahayn, hawl badan baan soo marnay. qurba joogta reer cagaaran meel kasta ay joogaan, Africa, America, Australia, Asia, everywhere meel ay joogaanba way ka qayb qaateen. waxaa Ilaahay noo fududeeyay inaanu dhisno meesha hadda aan fadhino oo ah qaybta hooyada ama dhalaanka iyo hooyada baa Ilaahay noo fududeeyay, muhiimna ay ahayd inaanu qaybtaas dhisno. 2017 ayaa waxaa dhacday in aanu noqonay 2 group aanu kala jabnay. saasay maysan istaaginin ismihii ama hawshii may istaaginin ee meesheedii bay ka socotay. maasha Allah. markaanu dhammaynay isbitaalkii ama qaybtii dhalaanka iyo dhalmada waxaanu go'aansanay tiimkaygii in aanu keeno meel aan ka keenaba qalabkii Ilaahay waa noo fududeeyay. waxaa soo dhiibay ama qalabkii noo fududeeyay oo noo codsaday walaalkeen Asad Maxamed Xasan oo jooga Canada oo Wembley kasoo raray degan yahay oo balaaxay Canada jooga magaalada Wembley la dhahayo ayuu qalabkaasi waxay noqotay ha ahaatee siday tahay ha ahaatee waxaan ka tirsanahay ama aan xidhinka ahay urur loo dhaho beeli oo aad u ballaaran. 2 shir aanu lahayn, marna aanu lahayn 2016 marna aanu lahayn 2017 oo ka kala dhacay dalalka Denmark iyo Sweden ayaan labadaba geeyay cagaarka dadka dad badan oo inta ka mid ah waa fiirsadeen. waxaan u sheegay in haddaan horta Bayden waa maxay? Bayden waxay tahay Bayden waa jaaliyadaha qurba joogta ee reer Puntland weeyaan oo isku tegay noocayiinba waan geeyay. marka dadka wax ka dhisay baan nahay, waxaan ku jiraa golaha shinsiga ayaan ku jiraa. dadka wax ka dhisay baan nahay, dadkii aas-aasay baan nahay. gaajadeedii ayaan ula tago waxaan dhahay in la iga caawiyo ayaan doonaya horta dhismaha isbitaalka iyo wuxuu yahayba waa la iga yeelay. waxay ahayd meesha la Berlin, Sweden. bacdi Berlin Sweden sanad baa ka soo wareegtay. annagu waxaan galnay dhismahan inaan ku mashquulno. after ama sanad kadib ayaa waxaan ku kulannay Copenhagen oo Denmark ah. baahidaydii baan haddana la tegey. markaas waxay isbeddelka gruupka 2 sanaba waxaa la doortaa guddoomiye cusub baa la doortaa. waxaan dooranay guddoomiye cusub baan dooranay. guddoomiyihii cusbaa sharci cusub baa haddana gruupkii la imaadeen. waana sax sharci cusub inaanu la imaano oo wixii sharciyadii la dhammaystiro. waad aragteen qabyo qoraal baa wax walba oo urur ah ama dowladda ama system leh qoraalay leeyihiin. waxaanu lahayn wax la yidhaahdo qabyo qoraal. qabyo qoraalkii ayaa waxaa ku soo darsoomay
إن الشخص العاون كريم وشخصي أنا العاون كريم شخصي العاون كريم يا سمير أو هرب كان ستي عكس جن سيدبين نسكوا في جنا waxaan isku waafajin karnaa horta sideena meeqa urur baynu nahay waxaanu nahay dad ka badan 35 urur baanu nahay oo adduunka dacaladiisa jooga ama Yurub dacaladiisa jooga qaar ba hadda Afrika looga soo darsamaysan maqlay qaar ba North America looga soo darsamayo urur weynaaday oo dhaqaaqa noqonay ka badan oo meesha joogay ayaa wuxuu dhahay ayaa waxa la aansaday inay beedin dalada beedin ee garab istaagto ayuu urur ah not inay ururka aqoontigiisa ururka aqoon u leeyahay kulligeen markaan nahay magaca leenahay ururka weyn ee mas'uulka saaran aqoon u leeyahay aqoontigina dib loogu noqonin oo aan lacag laga soo bixin laakiin codsigii Samiira intii naga mid ahayd 2 sano ka hor noo soo sheegtay sanadkii damar haddana 2 sano ka hor bilowday haddana sanadkii ku xigay sii sheegtay sidee u wafin wali waxay ii bilaabay wax la yiraahdo balreed ama lacag aruur xageen ka bilaabay UK ma bilaabay UK aad u balaaran ama England aad u balaaran aka bilaabay ra'iisul Suudiya gudoomiyaha Xuseen walaalkii Xuseen wuxuu ka soo duulay asoo ka soo qayb galaya maxaa la yiraahdaa farmeeska cagaaran hospital loo subinayo ayuu wuxuu ka duulay Stockholm oo ka duulay wuxuu tagay London buu tagay waxa kala soo duushay ubax cabshir oo joogta xibin ayadana golaha todobada sare ku jirto ayaa waxa ka soo duushay ayadana Oslo waxay u soo duushay inay maada London nagala qayb qaadato hawshaas iyo hawlo kale oo qarsanayay oo qusaysa beedin ururada mustaqbalka intii wana la aflixiyay gabadh ku jirta wasaare cibaarada oo ka hadashay habeen dhaweyd si fiican u sharaxday maxaa la yiraahdaa video live oo ay soo galeen ayadii gudoomiye si sharaf leh u sharaxeen hadalkii tagay ka daba tageen si fiican u kala dhigeen gabadhaas ayaa haddana waxay u casuutay meesha la yiraahdo maxaa la dhahaa Leicester oo UK ka tagay oo ka dhoofay maxaa la dhahaa London waxaan aaday Leicester intaa waxaan u socday hawlaha cagaaran iyo dadka aan ka soo jeedo iyo dhibaatadaas qofka ma xiisan oo shaqooyinka qofna soo macaaliyo inta markay ahayd ayaa waxa haddana dhacday in asxaabtii kale iyo ururadii kale iyo gudoomiye urur kasta gudoomiyihiisa ayaa hawsha ila waday urur kasta gudoomiyihiisa hormuud u ah hawshiisa ka UK igu cusub horta waan isoo dhaafeen ka UK igu yeeray oo London igu yeeray waxaa la yiraahdaa asal original gabadha gudoomiyaha waa maanta Puntland bay joogtaa lacag baa la igu caawiyey isbitaalka lacagtiisii waa la qabsaday lacag badan baa la ururiyey ayna baa lacag laga soo ururiyey everywhere lacag laga ururiyey hawshii way socotaa garab istaagii wuu socdaa sidii u socda ayaa waxaa laga soo qeyliyey qalabkii markii laga soo qeyliyo la yiri qalabkii waa la dhacay ayaa soo reer Norway maadara dib ugu noqonaya reer Norway ku dhiibay 5,500 maanta alaabtu lacagteedu waxay ku fadhidaa oo ku timid Puntland ku timid boosaas ku soo gaartay $19,500 $5,500 jaaliyada Norway ee reer cagaaran ayaa dhiibay 300 dib uu soo diray Asad Maxamed Xasan ninkii waxaan siinay aniga tiimkaygu waxaan siinay $3,800 $5,000 buu keenay lacag meesha la dhaho maxaa la dhahaa Soomaali boosaaso ilaa lacagta aan dhiibnay waa inta u dhaxaysa Canada iyo maxaa la yiraahdaa Dubai ninkii xoolihii wuu dayacay haddaan afaaraha hadda dhex galana waxaas barnaamijka in saamixaynin ninkii alaab lacagtii waa la tegay waxba ka muuqan alaabtu waa dayactay lacag aad u fara badan baa lagu soo dalacday lacagtaas marka yaa dhiibay lacagtiis $2,000 bay waxay soo dirtay rajaalida
jaaliyada reer cagaaran ee Norway 2,000 ku soo dartay saas waxay ku maraysaa 7,500 dollar ay ku marayaan ninkii wuu qaatay alaabta lacagta uu la tagay tu anagu aan ugu daraniyo tiimkayga waa la tagay oo hore aan u aruurinay alaabta lacag aad u fara badan baa loo qabsan aad u fara badan lacagtii waxa iga caawiyay ma horta waxaan la xiriiray mas'uuliyiintii reer cagaaran ee ila joogay Norway waxaa ka mid ah weli maxamed jaamac weli qaali oon kala soo hadlay Soomaaliya oon ku iri alaabtii lacag aad u $10,000 gaaraysa oo waxba dhinayn ayaa loo haystaa oo haddii kow ah waxaynu soo bixinayna ka kacwaa wuxuu yiri Soomaaliyaan joogaa waxaan ka qaban karaa malaha ee wax furdaabiya waxaan la hadlay Cabdirasaaq Cali Sanweyne baan la hadlay oo jooga ka mid ah jaaliyada Norway ahna reer cagaar ahna xildhibaan ku jira golaha deegaanka magaalo la dhaho ama gobol la dhaho Hedmark wuxuu igu yiri lacagtaas aad u fara badan tahay waqtina way qaadanaysaa raadiskan waa run waxaan idhiin marka meel baa loo raadinayaa oo meel baa loo doonayaa oo i garab istaagay jaaliyadaha isku tagay ee reer Puntland dadkii ahaa ee ururada faraha badan ahaa ayaa igu garab istaagay in la soo daayo oo 7,500 ma ahan inta ka dhiman lagu soo daayo maxaa la yiraahdaa 9,500 waxaa isiiyay ama ugu caawiyay oo igu garab istaagay jaaliyadaha Beedin ee reer Yurub oo ka soo jeeda Puntland markhaati ma doonto weeye kilibiyadii baa duuban meelihii aan ku shiray baa duuban lacagihii baa maxaa la dhahaa soo aruunteedii baa duuban sawiradeedu waa carriga maraya facebookayga ninkii rabana facebookayga kala garaa sidaa iyada u daadsan oon meel kasta marayno oo UK ah jaaliyada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalaha isoo garab istaageen sida hufan ee walaaltinimada ku dheehan tahay noo garab istaagay oo noo tusay inaan walaalahood nahay oo reer Puntland oo isu tagay oo baxsada Beedin anigu marka shakhsiyan inuu soo noqdo markaan joogay maxaa la yiraahdaa Dubai markaan xoolahaas intaas leeg aan la rafaaday dhiikarka igu dhacay rag baa jooga mas'uuliyiin oo ka soo jeeda cagaaran oo 2 nin ah oo la yaqaano oo la dhaho waxaan u maleynaa dhaho bira dhaga cagaaran iyo nin la dhaha cirguje la dhaho in la dhaha Cabdisalaan oo u maleynaa ayaa waxa ay sheegayaan in loo qabsado lacag aad u fara badan alaabta raggaas oo qaatay waxaa kaloo cadeynaya inaan lacagta ee Beedin aan soo diray oo UK ka soo diray ninkii dhaqaalaha noo hayay oo ah maxaa la yiraahdaa Cabdiqani Indha Xariir oo jooga cagaaran jooga reer cagaaran ah oo lacagtaas ku soo diray oo ku darnay anoo UK jooga ka soo diray oo ku darnay alaabta maxaa la dhismaha isbitaalka ku darnay dhismaha isbitaalka ku soo diray in lacagtii ay reer Beedin soo aruuriyeen oo soo qaadeen oo noo isiiyeen inuu dib anoo Dubai joogo soo celin si alaabta loogu soo fardaamay oo way bilkeeda loo helo way bilkii waa leelay horta waana imaaday alaabtii alxamdulillah inaan horta ereyga Beedin dhaho horta saas ayaa igu kaliftay ama asbaabtaasaan u dhahay sida aan irna waa la leexiyay ma dhihin alaa isbitaalka waxaa dhisay Beedin ma dhihin alaabta waxaa keenay Beedin ma dhihin waxaa iri Beedin oo juhdi badan ku bixisay ayaa mahad celiyay hadalka ninna si u yiri ninna si u qaaday waxaan ka raali gelinayaa dhammaan reer cagaaran meel kasta ay joogaan hadda qof kasta hadalka iga dhibsaday sababtaas aan u iriyay meel nin walba cunug walba qabooyo kasta aaba kasta gurigiisa ku raali gelinaya anigu wax qurux baan lahaa igama ahayn dad dhibaateen igama ahayn buuq kici
taaga maahay laakiin reer cagaaran iyo deegaanka reer cagaaran waxa kasoo jeedo waxaan inii sheegayaa intaas markaa marayay nin lacag ima siinin nin shaqo iguma siinin nin ima dirin nin ima khasbin qof ma aflagaadin meediya kama caytamo laakiin waxaan ku mutaystay in aan lay dhaho maxaa la yidhaahdaa alaabtii way gadatay in la ii hanjabo oo ragga ii hanjabaan war ma dhaar baan ku martaystay intaas war macay baan ku martaystay intaas saddex nin ayaa ii soo dhaaratay ma qarinayo saddex nin oo ilma adeeraday ah oo walaalahay ah ayaa ii soo dhaartay waa sugaal jaamac biin jooga Australia waa cabdiraxmaan shaafici fuundi jooga Kenya waa cabdullaahi aadan cali dude jooga Canada caydi ma sheegayo caydi hoosh xumay ma sheegayo aad u fal xumay codadkiina qaarkood wareegayaan social media ma sheegayo laakiin waxaan maanta isku weydiinayaa meel kasta ay joogaan war ma intaasaan ku galabsaday in la ii hanjabo oo weliba uu nin ii hanjabo ayaan weydiinayaa waxaan weydiinayaa nin baan ka tegey laakiin ninkii lama soo xarin aniga cabdirasaaq ciro oo jooga Canada aniga lama soo xarin laakiin cabdiraxmaan shaafici fuundi wuxuu yiri annagoo tiima waa inaan islaamka dhex saarnaa marka waxaan arkay inuu tay u hadlayo idinkoo anigu waa isdejiyay marka arkay waxayna faraha ka bixin waa isdejiyay qof walba waa weydiin oo waxaas maxaa ka wadaa oo saas maxaa ka yeesha waayo wax iga dhawaacad xun oo kulma jirto laakiin tala fara waa ka baxday ku qabatay qadar Allah igu noqotay ku qabatay qadar Allah ayay igu noqotay waa la qabsaday marka waa ka qasbana qof walba inaan meeshu joogo weydiiyo wala waxa maxaa ka wadaa wala maxaa ka wadaa nin weyn oo in adeerkaya marna abtigay ah ayaa wuxuu soo yiri waxay ka gadatay alaabtii Ismaan Maxamuud oo qabo ani la qabo waa kaasna waa kee waa ina Japan ay ciisaad xogaa ayga baakiisay waa ina Japan qol weyn oo cad Ibraahim ka soo hadlay video maxaa la klibkiisina ninkii maqlay meel kasta wareegaya ninka wuxuu ka hadlay waa nin weyn oo oday ah maxaan ku noqonayaa hadalkiina shaafici wuxuu igu dhahay group baan nahay waanu kaa tashanay waanu shir baan kaa galnay in la idilaa shir loo galayaa war ma dadka iska soo celiya waxa idin soo qolo badan baa soo fukan qolyaha aadan in la dhibaateeyo oo mutaysanin waxaan kaloo maanta inii sheegayaa meel kasta aad joogtaan isbitaalka furihiisi baan anaa bilaabay and I will never ever banaankeena ka istaago waan dhex joogayaa waa dalkaygii waa dadkaygii wixii aan awoodaan keenayaa kii ka shaqeeyaan la shaqaynayaa anigu gruubka gabdhaha ah oo 14 gabdhood ah anigu negative-kooda halkaan uma soo fariisan laakiin waxaan u sheegayaa aan u dirayaa waan ka shaqeynaya isbitaalka waan la shaqeynaya haddaad idinku tegaysaan waa idinka idinka alla haddaad idinku ku xiraysaan baahida reerkeena iyo balabalka reerkeena haysto ina daafeed isbitaalka ka wareegto neeba kama wareegayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله هذا البلان رميو مقاعد وموسى كام حسن قدوميها سبورت في الجلدة ديغان كعقارا waxaa tusaale noogu filan 2016 ilaa 2018 bishii saddexaad hadda aan ku jirno Samiir Cabdullaahi oo ku jira xaalad deegaanka cagaaran iyo danta Cali Ibraahim waa waqti aad u dheer qof intaa waqtiga la ku bixiyay danta guud oo Cali Ibraahim su'aal baynu weydiiso waxay tiri maxaan galabsaday markaan inta soo sameeyay in maaragtay ayo oo ay dhigo oo waliba dad
rag ahoo maxaan ku ilaahay aan dumar ahayn jawaabtaa waxaan leenahay waa xaqdarro waa barnaamij khaldan waana ka soo horjeednaa qodobka labaad waxaan caddaynaynaa alaabtii timid cagaaran annagaa gacantanada gaariga kaga dejinay cagaaran markay alaabtu timaado mas-uuliyaddiisa waxaa la wareegaya maamulka cagaaran waxaa xukuma maamul ilaa heer puntland ilaa heer federaal state bay ka qabsan ayagaa u talinaya bahda caafimaadka iyo deegaanka ummadda ku nool ma ahan waa soo dhiibnayo dhegtaan haysanaya meeshii lagu mariyey meel ku habboon bay ahayd ka hor intuusa isbitaalkaanu jirin de isbitaalkii labaad oo aanu lahayn oo gaalkacyo ahayd baa qayb la geeyey warka xigmaddiisu intii la ammaani karay iyo intii xog laga soo sheekeeyey samiire cabdullaahi jazaaka allahu khayr dadaalkaaga sii laba jirbaa ummaddii kaloo ka qayb qaadatay ururka biidham ha ahaado jaaliyadihii kale ha ahaadeen si guud baan u mahadcelinaynaa hadalkayga waxaan kusoo koobayaa walaal raalli ka ah oo samiiro markii hadalkaa ku yidhi annagoo matalayna dadka inta wanaagsan baanu si guud kaaga raaligelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah biri ka maalinna intay kugu dhacdo expire kugu noqoto kugu boorowdo kugu xumaato aad qashinka ku dari lahayd walaalkaa kula dhashay oo dariska kula ah inaad uga faa'iidaysatid oo ka faa'iidaysto waa shay muslimtinimada ku jirta alaabtaasu saasay ahayd markaan u garannay in alaabtaasi ama meeshaan ku dhici doonto ama ayba ku xumaan doonto iyo alaabtii inta hadda haysanay wixii dheeriga ka ahaa waxaanu garannay inaanu u gudbinno isbitaalka weyn isbitaalka weynna waxaa lagu gudbiyey wadatashi maamulkaa joogay bahda caafimaadkaa joogtay dadka odayaasha iyo waxgaradkaa joogay waxa la isaga tagrifashayoo shaksi iyo laba iyo isaga tagrifasheen ma ahayne wax loo dhan yahay oo muddo badan ay hadalkeedu socotay bay ahayd sidaa darteed baana loo gudbiyey isbitaalka weyn maxaa loogu gudbiyey qofka haatan dhahayana kolley waxaan u malaynayaa waa qof aan ama deegaanka cagaaran ka mid ahayn ama deegaanka puntland iyo waddanka soomaaliya joogin sababtaa waxaa u leeyahay isbitaalka cagaaran iyo deegaanka hadda aan joogno wax ay kala yihiin qofkii yaqaana waa ka dharagsan yahay waxba ma kala aha isbitaalka cagaaran iyo halkan isku wasaarad baa maamusha wasaaradda caafimaadka wada maamusha isku meel baa wax laga soo qaataa halkan wixii ka go'a waa loo doontaa alaabtaas waxaan caddaynaynaa inaanan ciduna gadan ciduna bahalkiyayn si kalena loo tagrifilan kolley si mubaax oo cad oo la yaqaano oo telefishinada laga daawaday baan waxaan ugu wareejinay agaasimihii isbitaalka maxamed xuseen iyo isku duwaha caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim labadaasaa si mas-uuliyad la noogala wareegay markii aan wareejinayna hadalladooda kolley waa la maqlayay alaabtaas in si mutadawacnimo ah oo loogu taageeray loogu wareejiyey isbitaalka oo noogala wareegeen labada mas-uul hadalkayga waxaan kusoo gaabinayaa alaabta in sidaa loo wareejiyey alaab si kale ku baxday iyo alaab la gatay iyo alaab hadeertaan si kale ku timid aysan ahayn baahideeduna aysaa noqotay ciddii kaleeto u baahan inay ka jaahilbaxdana cabdikaafi baa noo sii dhammaystiri doona inay alaabtaasi isbitaalka dhex taallo cid iibsatay iyo cid iib ahaan ku geysana aysan jirin sidaa loogu wareejiyey intaasaa hadal kusoo gaabinaya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رأي عقارن يودتك كيمد قال كعي كل وين سلامية الصومالي والله قبض يا يقول ضلها عبد الكافي يوسف شرير وياه سميرو يحال كذا مرة بينا كوفق هذا أنا وصار كم الشقية لكن وعنا هي حبينكم إذا صار دعف ما تقول كمدق ألعبت أستراد بدن رنتي أو تمد waxa la iga soo dalbaday oo maamulka gobolka iyo maamulka degmada cagaaran iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka cagaaran waxay iga soo dalbadeen inaan mataqaanaa la shaqeeyo oo aan ka caawiyo alaabtaas meeshaas taalla sidii loo kala guri lahaa runtii alaabtaas waxay 500 ay tam 500 oo shay oo kala duwan oo ku jirta ugu yaraan 300 400 oo kartoon bay ahayd alaabtaas waxaad moodaysaa inaysan ahayn baahi lagu tolay baahida loo tolay ay ka faa'iido cagaaran alaab baahi ka tagtay oo lagu saleeyay uma aysan ekeen sidoo kale uma ekeen alaab
qofkii halkaan keenay uu xor u ahaa in uu baarto oo uu ka baarto waxyaalaha uu isleeyahay deegaanka aad u socotid way u baahan yihiin waxay ahaayeen alaab loogu talagalay waxyaalo inaan boqolka sano soo socotayna wayna gaareen qaarkood waxaa ku jira sariiro waxaa ku jira joodariyaal waxaa ku jirtay daawooyin waxaa ku jira miisaska dadka lagu qaado waxaa ku jira waxa dadka lagu qalo waxaa ku jira tubooyinka dadka la geliyo waxaa ku jira bariya dadka marka la qalaya loo dhigo waxaa ku jira wax qalab shaybaar waxaa ku jiray raaji filinka processorka oo raajiga qayb ka mid ah oo raaji oo dhan ahayn waxaa ku jiray waxyaalaha dadka lagu dhayo waxaa ku jiray biro dadku markay ay jabaan lagu gaarsiiyo goobaha istaalka ah waxaa ku jiray dun waxyaalo badan oo waxaa jirtay baa alaabtaas ka koobneed runtii alaabtii markaan dhex galay waxay u kala qaybsatay laba qaybood qayb waxay noqotay war inaga horta maxaynu qaadi karaa istaalkeenu muxuu qaadi karaa haddii waxaynu haynaa istaalkeena ay ka bataan la see yeelaynaa annagu markaan kala dhignay waxaan u yeernay maamulka deegaankaan u yeernay waxaan u sheegnay alaabtaan 20 sano 30 sano 40 sano soo socota qaar ka mid inay anagu xataa istaalkii gaalkaxyo la geeyay xataa inay isticmaalayaan u malayn maayo istaalkan jooga ilaa haddana cid furtay oo fiirsan ma jirto waxaa la go'aansaday wixii nuxur leh oo meeshaas yaal oo ka turjumaya baahida asaasiga ee markaan taagan qofka reer cagaaran saacadan u baahan yahay wixii ah in la isticmaalo wixii kale oo ka baxsan baahida cagaaran in looga faa'iideeyo cidii ka jawaabaysa waxaan waa qalab caafimaadkuna diin iyo midab iyo kalar midna kuma shaqeeyo wixii ay degmada cagaaran u baahnayd oo baahideeda ka turjumayay waxaa ka shaqeeyay maamulka isbitaalka ayaa la haray dhowr 20 sanadood bay haystaan 3 sanadood oo بعد السلام أنا قال يا أفكار مامورك رد يقول ريال أي قالين أرمي جهاد كنت عندي هذا تقول ريال مامورك اللي على جري هدي أنت عن قرآن كلامه أنا حالك كعدينا سيدا شرفت له إسبيتال مقلة بيسية هاي أيوها بيسية هاي تشوف هي ذلك أيوه بحيان ضدك يا قرب شوكته أنا قلت شوكت السميرة حنا دافير وعندي لما تكاسي وحنا قبل ليه المهلة وحنا قبل ليه سولوين وحنا قبل ليه طالع يعني أبغى مرة نصير مرة ليه سعيد قبل ليه أفلاقات قبل ليه هذا الحين يسمى قبل ليه بنا كان مهلة كانوا شرف الشيء قبل ليه ضد يقول روح عبد يقول راسي سبحان الله الله وحنا عبدين يعني سبحان الله الله تعالى كسر ريسي إلى عجالة من الشوفي إلى عجالة من سبتال كيسة أي ضدك في عجالة كأي كلام ده هاي الله تعالى بوساسي كسر دكتي عجالة كبسر دكتي ما دام بوساسي كسر دكتي سميرة يعني مسكوت بامه هاي عجالة بكون الشغلي سلا أي عجالة ممكن تجاري لو قد تشري سي بوساسي يقدروا يملك كلام منه كم يسواره كل ما كان قربان يقارن لكن كل سوالف يملك له عندي كرارات أكثر عجارة بقول رسي عجارة ممكن كثير واحد يقول إجتماع ممكن دجاج كعجارة ما ممكن دجاج كعجارة منه كل حقن ميارات المدام على فرق بدنا يتهاي إلى إسبيتال كجار كعيود ولا بيكره إسبيتال كعجارة إسبيتال كجار كعيود ولا إسبيتال وتيرسل إن أي شر رسميان إن جاوب قد حيكون إن القلب قد حيوه لازم واحد أجاسمي وما ممكن دجاج كعجارة لو واحد مسمير أجاسمتي أما عد كلا أجاسم كسالة معي ما هو خير أسولي مع كونة تشتري إن أنا ألعبت قيمة كسر إسبيتال كجار كعيو ما دام إسبيتال كعجارة إسبيتال كجار كعيو لو إسبيتال مسميرة ودقمة يطولوا أي كليين أي ساعة ذكريان waxaan halkan baraha bulshada iyo meel walba ka cadaynaynaa in gabadha walaashiya wax nursata aysan jirin inay waxay waday maamulka deegaanka cagaaran ay ku wareejisay in maamulka cagaaran asagu ciddii marka uu la samayn karo xiriir uu kula sameeyey iyaduna ay dar u ahayd oo kolley isbitaalka wax badan baa uga baahnaa gaalkacyood waa laba isbitaal isku mid ah hadalkaana badiyo biyo waxaan uga baxayaa waxaan u cadaynaynaa halkaas samiiro inaysan wax muusiga ka geysan qalabka isbitaalka inaysan wax tagrafala ka geysan inay tarantiisa iyo mudnaantiisa maamulka cagaaran ay siisay inay bulshada reer cagaaran siisay inay haweenka siisay wayna ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol talada iyo soo jeedinta iyo fikradda ay nagala qaadatay
aad bay u mahadsantahay gabadhaasi waa u mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa leenahay walaale aad baad u mahadsan tahay sharaf baa agteeda kuu taalla puntland oo dhan kuu taalla reer cagaara kuu taalla soomaaliya oo dhanna kuu dhigana insha allah bilaahi dad islaam nahay inaynu isku baraarujino cabsida ilaahay ayaa lamidka koowaad marka koowaad naf kasta moodaynu dhimanaysaa god baynu galaynaa madow inaynu isxamanno oo iscayno oo wax iska sheegno waa inaan ka xaaraamada koowaad horta ilahay waa ina ka xarimo islaam baynu nahay qof aan ka dhegsanaytaa ma jiraan maraynaya marka koowaad marka labaad haddaanu nahay maamulka reer cagaaran ama deegaanka cagaaran maamulkiisa annagu samiro waxaan u haynaa hambalyo iyo soo dhaweyn iyo qof kasta oo axbad keenin ee kusoo kordhiya deegaanka cagaaran wax ay iyo wax aflagaada ah nagama mudno qofkii deegaanka cagaaran kusoo siyaadiya xabad kaniiniya sidii raggii ugu horreeyay ay sheegeen wuxuu naga mudan yahay inaan taalo u dhisno wuxuu naga mudan yahay inaan u hambalyeyno wuxuu naga mudan yahay inaan wadooyinka ku magacaabato geliyaa usayno naga mudan yahay dadka aflagaadooyinka geysanayo oo kasoo caytamahayo waxaan yahay baraha bulshada dhexdooda kulley waxaan u malaynayaa naf iyo shaydaan baa iskale wixii xadguduba haddii kulley waan iska awoys ilahayo dadka insaanka waa lagu abuuray waxyaabaha xadgudubka insaanka waa lagu abuuray laakiinse waxaan anagu hadda caddaynaynaa in si cadna loo kusoo wareejiyey qalabkii samiiro loo soo dhiibay kow boosaasu markii qalabkaas u kasoo degayay in wasiirkii iyo nabadoon saweyne in lagu soo wareejiyey qalabkaas halkaana la keenay isagoo sidiisi uma ogolaysana aan cid furfurdhay iyo cid barnaamijkaas dhex gashay aysan jirin ayna tahay aflagaado in gabadhaas lagu naynaaso wax aysan samayn waxaan u malaynayaa inay arrintaasu tahay arrin aflagaado ah waxaan codsanaynaa dadka barnaamijkaas sameeyey in ay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan qof waxaa jira camal falanahaya in badan intuu camal fasho oo aakhiro usoo shaqaysto camalkiisii markuu dhinto qof kaleeto iyo camalkii kala wareega ayaa jira maxaa yeelay xan hadduu qofku camalkiisi intuu qofka xanto uu aflagaaday wax ilaahay u banay uu dhex galo camalkiisi aakhiro markuu tago qofkaas aflagaaday ayaa camalkiisi la wareegaya waxaa laynoo sheegay dad badan oo in badan ilaahay darti u tukanayay ilaahay darti u cibaadaysanayay in camalkoodii uu hadhow burahayo naartan ay geli doonaan qofkii gabadha xantay waxaan ka codsanaynaa ama kiliib ka soo caayay ama bulsho dhexdeeda ka soo caayay in aad ilaahay inaad noqoto dembidaas gabadhaan raaligeli aad weydiisato intaas ayaan meeshaas ka cadaynaynaa annaga waxaan cadaynaynaa qalabkaas lagu soo wareejiyey qalabka wixii aan deegaanka anfacayna waxaa la isla qaato odayaasha deegaanka imaamku isla qaatay wixii deegaanka macnaha anfacay maahane wixii kaleeto oo deegaanka ka dheeriya ama haddeer waxqabadkiisu uusan deegaanka waxaa la yidhaahdo haddeer baahi uusan u qabin in loo gudbiyo isbitaalka weyn waxaa laga kumriya deegaanka cagaaran isagaa waxaa la yidhahdo qalabka keena isagaa dawada keena isagaa awal horeeto wax alla wixii deegaanka looga baahda keeni jiray saa darteed xaq baan u leenahay inaan gudbino qalabka oo aynu wax ka bixin xaq lahayn taasuna ammaan baynu ku tahay cayna kuma ahan alxamdulillahi rabbil caalamiin marka waxaan leeyahay dadku ha is ilaaliyeen aflagaadada ha iska ilaaliyeen cayda ha iska ilaaliyeen ilahayna ha noqdeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidii hore soomaalida waxaa oran jiray waxaa jira ruux waalan oo walaalaha kala dile horta dad joogaan cagaaran ama ha maqnaadina ma joogan baan filayaa inay codkaas jaaliyadihii gabadhii loo shaqaynaysay iyo ciddii dibadda jirtayba ayagu isku direen codkaasna gudbiyeen baan aaminsanaha taasuna ceeb iyo fadeexo iyo aakhiradaada igu filan sidaya kulley aniga ra'yigay falhayo walaalayaal marka horta qof kasta oo waxna taray oo soomaali ah oo puntland ah oo jife ah ama qabiil ah mahad ilaahay ka gaadho khayrna iyo ajar iyo xasanaadna allah ka siiyo furcaagna tuujiga ilmaha lagu fariisiyana allah ka dhigo mahad celinayna waa guryo dhisan iyo qalab qaali oo aanaan baheli karin oo ilaahay noo keenay ilaah baa mahadda iskale dadka iyagina noogu dadaala noo soo raadiya noo keena noogu soo dhigtoodeen waxaan odhan lahayn wada meeshaa ka waday baan dhihi lahaa gabdhaha jira oo wararka loo sheegay oo dibadda ka hadlaya ragba dee kii wax tarayna yaan war xumaana kuu sheekay ee waad ku mahadsan tahay deeqdaadii ha ku noqon kii wax tarayo deeqdaadii ha ku noqono hal bacal lagu lisay ha ka dhig kii aan wax tarinowna
ceebtaada iyo caydaada meeshaa la fadhi aakhare waabaa kuu sugan adiga samiirana maanta buunbuunin uma baahna ayagaa soo wakiilsaday dadnimadeeda iyo kartideedana waxbay kusoo aruursaday ayay kusoo aruurisay kuna keentay uguna soo dhibtootay haddana nagu dhex taagan tahay isbitaalka iyadaa nala cabirtay maxaa ahayd xataa nala dhaqday way nala dhaqday xataa ayadaa dhaqday iyadaa maxaan ku dhahay sariiraha gogashay mana ay ahayd ha lagugu ammaano iyo ha lagugu tixgeliyo midna may ahayd shaqadeedii bay ahayd ficil baa hayay soomaalinimo ficil shifaa hayay cagaaran ficilkeedaa hayay waana ku mahadsantaha ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyaanu leenahay meeshaadina inaad ka wadid baanu rabnaa taa waa loo dhisay sida maamulku sheegay waanu leenahay inaanu anaga haweenkaa marka baahida koowaad kuma haweenkaa iska leh hadday dhaqmo tahay hadday dhaawac tahay hadday ilmo tahay dee baloogan dumarkaa iska leh waa qaybtii dhalmada waa qaybtii jiifinta waa qaybtii qalabka alxamdulilahi rabbilcaalamiin boqolkiiba boqol annaga waaba noo soo dadaash khayrna allaha siiyo khayr allaha siiyo gabdhaha jaaliyadda oo dibadda jira oo hadalka xun u tegayna waxaanu leenahay waxaas laynii sheegay waxba kama jira waraxmatullaahi barakaatu aniga magacaygu xaali jaamac salaad xaali jaamac xawle ciddi magacayga taqaan iyo ciddi muuqayga taqaanba ilaahay baa mahadle isaga